kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen bulshada deegaanka la jiiday oo ujeedkiisu ahaa taageeridda habka dowladda federaalka ay u wajahayso dhisitaanka dowlad goboleedka Galmudug ayagoona meesha ka saaray war ka soo yeeray nin ugaas sheeganayo oo dowladda federaalka ku cambaarayay magaalada Dhuusamareeb gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga maamul sameynta Galmudug bulshada deegaanka la jiiday oo isugu timid madasha ayaa sheegay in hadalka ka soo yeeray odayga uusan ahayn mid qabta beesha Saleebaan Cabdulle oo ku sheegay in aysan degin Galmudug waxaana ugu horeyntii kulanka ka warbixiyay gudoomiyaha deegaanka la jiiday Xasan Cabdiraxmaan Macallin Faarax waxaan ka hadlaynaa annagoo ah beesha Saleebaan Cabdulle hadal shala Dhuusamareeb ka soo yeeray oo niman odayaal ah oo ninka la yiraahdo ay kaga hadleen oo Cabdulle ah oo yiraahdeen beesha Saleebaan Cabdulle ma ay degto Galgaduud ma ay degto hadalkaas baan beeninaynaa Galgaduud dadega baan nahay ninka la yiraahdo ku nool baan nahay buurshaan degnaa xiraalaan degnaa kordhisaan degnaa la jiidaan degnaa ninka la yiraahdo nimanka sidaas u hadlayna waa niman walaalaheena annagu hadda caayimayno laakiin in ay dad la dhashay walaalahooda ama ka badan ama ninka la yiraahdo lamid ah ay yiraahdaan ninka la yiraahdo wax jira ma ahan ma ay degaan ninka la yiraahdo waa nasiib darro ayaka u soo yeetay annagu hadda waxba ka sheegi mayno ninka la yiraahdo odayga la yiraahdo Cabdiraxmaan Xaaji ninka la yiraahdo Xaaji Xuseen waa nin oday ah oo waa nin jiro waa jira waana beesha huushu ka mid yahay huushaan la deganahay xiraalaan la deganahay la jiidaan gooni u deganno annagu aan leenahay kordhisaan gaar u leenahay huurshe iyo xiraalana waan la degan oo ninka la yiraahdo beelaha la degan baan ka midnahay annagoo sidaas ay inuu yiraahdo ma ay degaan oo ma jiraan ninka la yiraahdo odaytinimadiisa iyo ugaasnimada uu sheeganayo bay wax u dhimaysaa annaka waxba noo dhimayso waxna naga qaadi mayso odayaasha dhaqanka iyo ururkooyinka deegaanka la jiiday ayaa cambaariyay hadal ka soo yeeray ninka ugaaska sheeganaya ee Dhuusamareeb ka hadlay waa sida ay hadalka u dhigeen annagu hadda mid ka hadli mayno Saleebaan Cabdulle ma jira mise ma jira ka hadli mayno waxaan adduunweynaha u sheegaynaa in Cabdi Cabdulle iyo Saleebaan Cabdulle iyo Maxamed Cabdulle iyo Gorod Cabdulle afartaas aan u dhalanay Saleebaan Cabdulle inaan annagu nahay ugaas inaan leenahay dowladda federaalka inaan ku leenahay qayb oo Mahad Cabdulle Cawid noogu jiro oo wasiir aan ku leenahay Galmudugna aan xibin ku leenahay oo ugaaska iyagu yahay Cabdullaahi Maxamed Xirsi waxa soo haray ina islaam waxaan u sheegaynaa wixii gafiya ah oo beeshayada Cabdulle madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xildhibaanada iyo wasiirka arrimaha gudaha ka gaaray inaan ka raali gelinayno warqabtana uuna ahayn kana raali ahaada madaxweyne iyo wasiir iyo ra'iisul wasaare raalina ahaada warkaasna war inay qalmama deegaankana waxaan deganahay la jiide waxaan deganahay xaraale waxaan deganahay kordhiso waxaan deganahay huurshe afarta meelood baa Saleebaan Cabdulle degan yihiin waxaan dawladda dhexe ka codsanayna ama Galmudug ka codsanayna deegaanka xaquuqda anagu aan ku leenahay inaan ka helno kelmadaha soo yeeray aad baan uga xunnahay uu ku hadlay ninka weyn oo odaga ah waa qalad waa hadal fool xun oo aan fiicnayn dadka walaalka ana kala dila asaga ku xumaaday laakiin ku dayan mayno waxaan kaloo leeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qaybta dawladda qayb nooc kasta ay noqoto hadalkaas waa hadal badalan ah oo wax ka jira aan la arag waxaan leenahay Mahad Cabdulle Cawid iyo ugaaska midna waxba uma gudbin karaan waxna ma oran karaan waxna kama dhimi karaan waxna uma dhibi karaan waa yaqdo iyo habaar taas waxaan u arkaa hadal fool xun oo aan fiicnayn qofkii ay ka soo yeertayna waa ku fool xun yahay waana hadal fadeexa ah waxaan leeyahay dawladda federaalka ah iyo Galmudug xaquuqda ay ku leeyihiin deegaanka aan deganahay beesha Saleebaan Cabdulle waa inay wax ka qabtaan qaybta aan ku leenahay waa inay si dastuur ah oo maxay ahaado nidaam ah aan ku helno Saciid Jeyta Ali Saciid Bulshaawi Kalsan TV Balanballe